السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محاربي إن أنا كهذلو أرينير أو فيسبوك الوجوس الشاعية تاسو فرين أودو بشيء كينياوي وكهذلايو نقول كقبلها إن أي جورسدان حيل هوري نقول هانتي أدو ونكسنت هاي إن قبلها أي جورسدان وقت هوري لكن سؤال شميش التاجن وحيت هاي هبك الصياغة وشيق استعمالي وانا ذا وقبلها وانيناي أو هاد أرين آد قبلها سامين ويالتي هذا هذا الشيق فيديو أنت أركتي أو محلها مسوق هذا نايو قيابها ضم بشيق وكل هاي قبلها صالحات كأ مجاران لواتن سنة أو واحد جورسدان إن أي لواتن سنة كهر يعني ده أدرس أنت سنجاري قضب كلاباد وشاق ku iftiimi oo ku yiri gabadha marka ay PhD holder qaadato ma ogolaanayso in ay nin ka dambeeso ama nin uu amro xaalad waxyaabo badan ah dadka iskaga darsan qodobka koowaad saalixnimada gabadha iyo wanaageeda iyo raalinimadeeda kuma xirna da'da ay jirto taasaan kaga jawaabeynaa oo da' walba ay jirto gabadha oo da' walba lagu guursado sidoo Ilaahay u waafajiyo sidee aqoon u leedahay gabadhaas ee raalinimadeeda iyo wanaageeda ay ku xiran tahay waxayna aad raalinimada u sii wanaagsan tahay gabadha mar walba ay sii weynaato mar walba garaadkeeda iyo aqligeeda iyo waxgarashadeeda ay garato taasi waa taas qodobka labaad oo waxbarashada run ahaantii gabadha ayada ay ku xiran tahay guurka sidiisaba waxa waaye waa calaf iyo go'aan calaf oo Ilaahay uu waqtigu gabadhaas u talgal ay guursanayso iyo go'aan oo gabadha dhankeeda ka imaanayo laba mid waa in la kala saaro gabadha in ay ku shardiyeyso shuruuda waxyaabaha oo baatilka waxa kamid ah gabadha in ay ku shardiso waxbarasho ku jira ma guursanayo taas waa wax aanan yani sax ahayn oo qaldan laakiin gabadha hadii maxay ahaatay ay aaminsan tahay in awoodeeda aysan gaareynin in isku keento waxbarasho iyo maxaa la dhahaa guur cid ku qasbaysa ma lahan qodobka labaad gabadha hadaysan helin qof ay ku qanacdo isla markaana ay isleedahay qofkaana aleeyahay aad la anbaqaadi kartaa noloshaada haduusan jirin cid ku qasbaysa ma lahan soo qasab ma ahan da'daas jirtaa waa ina guursataa bareesharka gabdhaha la saarayo oo gabdhaha la leeyahay 30 sano gaartay 25 sano gaartay 40 ku dhowdahay ma guursatid ma fariq ka kacdid totally waa wax jaahilnimo ah waa wax aanan ilbaxnimo ahayn qofka ikhtiyaar uu leeyahay go'aanka asaale waa qofka qaangaar ah ma ahan in bareeshar lagu saaro even xitaa dadka weydiinaya ma guursatid maxaa ku dhacay waxyaabahaas oo kale waxay keenayaan qofka nafsiid ahaan xitaa in uu isla sheekaysto bulshada gabi ahaan waxa arintaas kala talin lahaa inay faraha kala baxaan wax quseeyana ma ahan qodobka labaad oo waxbarashada gabadha in heer walba oo waxbarasho ay gaarto iyadoo la qabay iyo iyadoo la qabinba xore u tahay teeda kale kuma xirno gabadha in ay ixtiraamto ninka qabo heerka waxbarashadeeda oo yani gabar PhD holder gaartay ma dhaheeno nin inuu amro ma rabto amarka aslan buu faslan wa farcanba waa qalad gabar kula mid ah oo ka mudan ixtiraam yani kala dambeyn waa wax saxsan laakiin awaamirta qaar ma ahan wax saxsan oo maxaa la dhahaa ragana waa inay bartaan gabdhaha sida loo ixtiraamo sida loo dhiirigeliyo gabdhaha waxbarashada in lagu dhiirigeliyo waaye sharaf ay ku tahay gabadh PhD holder hadii ah heshid ninkii helana wuxuu helay kunz mafquud ah waa ku dhiirigelinayna taas qodobka labaadna sheekh waxaan leenahay arintaas waxay sharaf dhac iyo meelkan ka dhacba u tahay gabar walba oo 20 sano ka weyn oo aanan wili guursanin waxayna noqonaysaa in lagu duraayo gabdhaha waajibna ma ahan in gabadha ay guursato 20 sano ayadoo ka yar xore u tahay da' walba da'day gaarto inay gabadha ku guursan karto teeda kalena magaaladan waa laga warqabaa oo waxay noqotay magaalo shaki iyo maxaa la dhahaa dhibaatooyinkii ragga ay aad iskaga bateen oo kalsoonidii gabdhihii ay aad u dhuntay marka ragga waxa ugu baaqi lahaa kalsoonidii gabdhaha ka lumiseen oo kumanaan gabdhood oo rag ay xumeeyeen la arkay kalsoonidii gabdhaha ka luntay hala soo celiyo ugu dambeyn dhammaan waxa ugu baaqaya gabdhaha Soomaaliyeed inay naftooda ku kalsoonaadaan in ay maxay ahayd aqoontooda horumariyaan in ay dhagaha ka xirtaan waxyaabaha qaarka ah maxaa la dhahaa magaalada la isla dhaxmaraayo oo gabdhaha lagu bahdilaayo gabar wax baratay waa bulsho wax baratay heer walba ay gabadha joogto guurso ama ha guursanin gabadha in ay maxay ahayd hore u kacdo
waadna mahadsantihiin dhammaantiin.